Somalia. markii aan la midownay Soomaaliya waxay ahayd dal kaliya maantana Soomaaliya way kala daadatay. Today Somalia is fragmented. Somaliland is in Somaliland way bad qabtaa. But former Italian Somalia laakiin Soomaaliyada Talyaanigu is fragmented waslado ayay u kala daadatay. into mincemeat. yaa u hadlaya Soomaaliya Who speaks for Somalia? ma jiro dal la yiraahdo Soomaaliya. There is no country. waa shan qaybood oo yaryar iyo hogaamiye kooxeedyo yaryar oo xukuma qaybahaasi. Who control sections? yaa si miyir qabta u midayn kara dal fashilmay sida Who Soomaaliya. in their right mind would reunite with a failed state like Somalia? taariikh ahaan Somaliland way ixtiraamtaa madaxbannaanida dhuleed ee dalalka. And for the record, Somaliland respects the territorial integrity of nations. ma aaminsanin kala We daadin. don't believe in fragmentation. mana aaminsanin gooni We u don't goosan believe in iyo secession. kala qaybinta dalalka. We don't believe in splintering a nation. xuduuduhu waa inay ahaadaan sida ku taala dastuurka midowga Afrika. Borders must remain as in the constitution of the African Union, as they were at the time. ee la sameeyay xilligii gumaystuhu tagay ee xorriyadda sida Somaliland. Like Somaliland. ma jirin Soomaaliya bad qabtay No intact Somalia. manay jirin dawlad Soomaaliya ka dhisnayd. No government in Somalia. intii ay Somaliland nabad ahay When Somaliland 28 has been sanadood. peaceful for 28 years, taasi waa taariikh dheer oo dib loo raaci karo. that's a long track record. ma jirto dib u noqosho. There is no going back. mana jirayso in dib loola midoobo Soomaaliya. There is no reunion with Somalia. waxaan u baahannahay wada xaajood aan ku abuurayno jaarnimo wanaagsan. Dialogue to establish good neighborly relations iyadoo with Somaliland ay teeda ku adag from tahay. its position of strength diyaar ayaan u nahay wada xaajood is ready si aan ugayigeena ugu bedelno mid how nabdoon. we can turn our region into a peaceful region. sidaas ayay tiri ergeyga gaarka ah ee Somaliland u qaabilsan wada hadallada Special envoy of Somaliland. Dr. Adna Aadan Ismaaciil waxaana intaasi ay sii ready to raacisay. talk to Somalia anytime. markasta diyaar ayaan u nahay wada hadallo laga dhaxli kara jaarnimo inagoo ah laba qaran oo siman. Separate, independent nations. Somaliland waxba looma yeedhin karo. Somaliland will not be dictated to. Somaliland Soomaaliya ma aha. Somaliland is not part of Somalia. kamana tirsana waxa loogu yeero dawladda federaalka ah. Part of the federal or so-called federal government of Somalia. ayay dunida u sheegtay Dr. Adna. Sovereign country. waxaa kaloo ay soo bandhigtay taariikh hore I am going to give you iyo warqadii xorriyadda loogu saxiixay Somaliland ee 1960 ay soo saartay boqorada Ingiriiska from Her Majesty Queen Elizabeth II oo waqti xaadir ka nool. who is still alive today. tani waa taariikh. This is history. adigu ma bedeli This kartid. is fact. anna ma bedeli karo. You cannot change it. I cannot change it. Soomaaliyana ma bedeli karto. Somalia cannot change it. iyo sidoo kale hambalyadii Mareykanku u soo diray Somaliland. Prove Somaliland's independence. This is the congratulatory note from the United States of America. ee uu soo saaray xogayihii Mareykanka ee xilka hayay 1960. Congratulating the Somaliland government on the achievement of your independence. ee loogu tahniyadeeyay xorriyadda dal ahaaneed ee ay heshay Somaliland. dadka leh Somaliland madax banaani ayay raadinaysaa. ma garanayo waxay ka hadlayaan. Somaliland hore ayay u madax banaanayd ayay tiri Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo saxaafadda kula hadashay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. So when people say Somaliland wants its independence, they don't know what they're talking about. Somaliland has always been